asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo codkaygu idiin soo gaari doono insha allah. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabo badan oo aan bulshadeena kula yaabay baa jirto, laakiin de ma wada awoodo inaan hal mar aan dadkii mataqaanaa wixii aan usoo gudbiyo. waxaan rabaa bal inaan idiin sheego inay jirto dhib ah inaynaan aqoonin mise isdhaafsiinayno. anigu ma garan karo dhibta in haystaa waxay tahay ma naqaano inay jirto wax la yiraahdo fikrad ama aragti. saa u taqaan waxaa jira wax la yiraahdo fikrad, aragti wax la yiraahdaa jira. aragtida iyo fikraduna dadka isku si uguma wada jirto. tusaale ahaan waa hadda inanta ka hadashay tacadiga dumarka loo geysanayo iyo caruurta. dad badan baa waxay sameeyeen, waxay soo qaateen fiidiyoyadeedii ay jarjareen, fiidiyoya kale kusoo korqabqabteen. dad yow mar hore hadlayo fiidiyoyadoodii inta lasoo gooyay inantii fiidiyoyadeedii lasoo jarjaray lagu dhijiyey oo laga dhigayo dad wada doodaya iyaga. dhibaatada in haysataa waxay tahay oo taas keenaysa ma jirto bulshadeenu ma yaqaanaan waxa la yiraahdo aragti. qofka maaha inaa mucaaradid, markuu fikradiisa ka hadlo maaha inaa mucaaradid. qofkan markuu wax ka hadlo, anaga qof markuu hadlo waxaan isku daynaa inaan mucaaradno, ka hortagno. wayna fasahaadinaysaa, diintay naga keenaynaysaa, dhaqankii bay fasahaadinaysaa. gabadhan aragtideeday ka hadashay, fikirkeeday ka hadashay. adiga waxaa kuu bannaan inaad ka hadasho fikradaada. waa inaad fahantid qofkan sidaad wax u aragtid uma arko, anigu saan wax u arko adigu uma aragtid. yacni dadka waxaa laga yaabaa 10 qof hadday meesha isku yimaadaan inay tusaale ahaan 2-3 ay isku aragti noqdaan, laakiin inta ugu badan dadku isku aragti maaha. shay baan ka hadlaynaa, shaygaa laga hadlaayo waa inaa aragtidaada ka dhiibato. waa inaa fahamtid qofkan inuusan wax dhibaato ah kugu haynin ee isagu ka hadlaayo fikirkiisa. sida ay maskaxdiisa waxu tusinayso ayuu qofku u hadlayaa. maaha in la mucaarado oo la weeraro, waa inaa adigana sidaad wax u aragtid aad u sheegtid. sidaad wax u aragto waa inaa u sheegtaa. dhibaatada labaad in haystaa waxay tahay waxaa isku qasaynaa diintii iyo dhaqankii. diinta iyo dhaqanku waa difference, maaha in la isku qaso. diintu waa waxaad adigu aaminsan tahay. yacni 100 diimood baa jira. ma dhahayno diimahoo dhan way saxsan yihiin, laakiin qof waliba waxbuu aaminsan yahay. qof korka ka saaranna ma jiro. qof waliba wixiisa uu aaminsan yahay asaa caabuda. diinta waxaa loogu talagalay adigu inaad aamintid cidaad aaminaysid. yacni ma dhahayno dadka ma dhahayno diimo kala qaata, aniga uma jeedo, laakiin guud ahaan bini aadankan ka hadlaya. waxaad adigu aaminsan tahay aamin, caabud. waxaa shuruudaha kaaga xidhan diintaas adiga la imow. diintaad adigu qaadatay ood aaminsan tahay shuruudaha ay leedahay aday muhiim kuu tahay inaad la timaad, laakiin inaad dadka kala korkortid wax wanaagsan ma. dadka hadda tusaale ahaan diimo kalaa jira. ma dhahayno diimahaas waa diimo saxa, waa quraafaad waan aaminsanahay, waan ognahay. haddana dadkaasi waxooda ay aaminsan yihiin ayay caabudaan. waxay sameeyaan waxa laga rabo ee looga baahan yahay in diintooda ay sameeyaan ayay sameeyaan. ee bulsho iyo qoomiyad iyo ummad toona dhakada kama fuulaan. marka dadka waa inay taas fahmaan. waa inay fahmaan insha allah. waxyaabaha inanta ka hadashayna anaan hadda waa sax iyo kala dhihin, mar kale ayaan insha allah ka hadlayaa iyadana.